قرآن كأو قبيلوين كخريستان مياه محل ده الصومالي محل ده الصومالي محل ده دعاء دعاء سنة يا حسمة محلها مرة مياه هذه واحد لو كلا يقال نبأ وبدعو أن صلحين قرآن كان ريركو السنة كمر السوق إيمانا يو وواح أن صلحين لأن وحويان هدو خيري هاي سيمات كنوع عاسا النبي قال صلى الله عليه وسلم أما أمدي سوبري لها أما الصحابة دي سيبا صلى الله أما قرون تصدح ذا بلغة سوق قوري لها هذا ترى هذا الشيخ القرآن بالله آخر محارب كتير محن الله إن القرآن بالله آخر قرآن قاعد هذا آخر سنة دين تفرتسي أنا هين بدعة النقل وأنا تنصور شيء نيو بدعة النوع اللي يقال البدعة الإضافية هو صوما عمل كأصل كيس شرعة تشديسي لكن قاب كي أتشديسي قاب أنا هين وحبات كسيادين إيسا أما إسوئمات بات كسيادين أما وقت بات كحديد شرعة أين كحديدين أما ميلا إن شرعة كحديدين بات كحديدي مركا واحد لهذا بدعة إضافية ليلة صوما القرآن كمركا قاب كنوع عاصل الله آخر السنة يوا نوع بدعة من بنانا شرعا النبي قلنا واكدك صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور بدعنا الله مفضل يستسيد هذا الشيخ محمد دبا كجيري محاكا معناه maxay dhibaysaa iyo soo quraan ma aha iyo inta badan dadka bidcu u fudud yihiin oo xasaasiyad badan aan bidcada ka qabin ama halista bidcadu leeyahay hatta aan dareensaneen baa sameeyay Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu warda ayaa nin baagtiisa ku hindhisay markaas wuxuu yiri alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركز وحويري وأنا أقول الحمد لله وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وحويري الحمد لله كدي من الصلاة جيبه قدره ماذا كخلدن يا روحه هندسي محل أوتل قالين وده الحمد لله maxay dhibaysaa hadaan salliga ku darsado shil mushkila ya maxaa dhibo ku jira wasalliga nabiga dhibaato la yimi bis khayrka aan siyaadiyay baa dhib la yimi meesheedii ma aha sooma salligu dhib lama iimaanine laakiin meesheedii maada gelinin Abdullah ibn Umar si aan loo dhihin salligii baa diidan tahay caamadu salliga diiday bay kugu bilaabi salliga diidadaysa loo dhigay wuxuu yiri aniga laftaydu nabiga waan ku salin buu horta wa ana aqul wassalatu wassalamu ala rasulillah walakin ma hakada amarna rasulullah sallallahu alayhi wasallam lakin sida nabigu wax nooma barin sidana nama amr sooma soo qaacida ma marka maxaa ka macnaayo maxaa dhibay leedahay wax jira ma inuu ku dhuuman meel ayna shariicadu wax dhigin ha dhigin si ayna wax u amrin oo u sameeynin ha u sameeynin ducada salaada ka dambaysa maxaa loo diidan yahay jamaaciga oo nafsu shay wixii aan jamaaca loogu talagalin lama jamaaceeyo reerku haday doonayaan nin walba gooniisa soo duceeyay war soo duceeya soo duceeya laakiin wax la qasho xoolo la qasho meel isugu yimaado munaasabad laga dhigo la waa bidca waay munaasibna ma